وبركاته وولالكينا عمر iyo janalka Hawd Soomaali walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo barnaamij aad u fiican oo ah in haddii moobeelkaaga inkiis uu kaa dhumo loogna uu ku xiran yahay qofka macnaha taleefankaaga helay haddii uu ilaahay ka dhigo qof daacad ah si qofkaasi uu kugu soo diri lahaa ama uu kula soo xiriiro ilaan taleefankii ma furmaayo nambaro ku jirana lama arkaayo waa in macnaha screenka banaankiisa u dhigto qofkan ama ugu qorto nambarka waalidka saaxiibadaada si ayagana ay ula xiriiraan magacaaga iyo nambarka isku raacsiiso ama email ugu qorto si qofkaasi si automatically ay ugu fududaato waxaan u sameyn kartaa matalan hadda kasoo qaad aniga hadda waa xirayaa waxaa igu xiran hadda gmailkaas waa ujeediina umaleynaa oo korkaas ku xiran oo cumar cabdi 10 ku xiran tahay gmailkaas oo kale si ugu qorto meesha hadda aniga gmail ay ugu qoran laakiin number ay ku xiran ilaa qofka looga uga xiran loogaas inuu furo waa mugta si kale kuma arkaya numberkaaga marka waa furayaa ugu horeen waxaad sameynaysaa waxaad tegaysaa settingka markaad tagto waxaad ka tegaysaa log screen meesha ku qoran tahay waa ujeedina umanaya log screen meeshaasaa ku dhufanaysaa kadibna waa kaasa contact information ku dhufanaysaa contact information ku qoran tahay hadda aniga gmail ay igu qoran waa ka bedelayaa misal waxaan leeyahay magacaygu waa hebel aan leeyahay my name is Mo and call macnaha waa oo kale aan leeyahay lambara ugu qoraa marka eber 6 sidaasa ugu qoraysaa nambarka qofkii dhow waa u fududaanaysaa markaasaa ku qoray marka qofkii haddii la furo taleefankii marka meesha arko fiiri wuu arkaya automatically qofka haddii uu qof fiiriyo wuxuu arkaya lambar magacaygu waa cumar kadibna waxaa wacdaa nambarka marka waa barnaamij aad u qiimo badan waxaa laga faa'iidaysto si qofka haddii taleefankaaga kaa dhumo qofkii ilaa loogan qofka suu ku keena waa adag tahay moogtahay wuu qalqaldaa marka dambe wuu isxiraa marka qofkiina u fududaanaya isla markii wuxuu leeyahay niyo hebel mi ahaa niyo qofkan nambarkiisa ada qof adiga ku kalsoon tahay ama waalidka ama walaalka aa loo sheegaya macnaa lambarkiisoo kale meesha ku qoranaysa waa la wacaa waxaa leeyahay walaalow qofkan cumar loo taleefankiisa ani meel ka helay meelaan kala xiriirina waa la ahay marka bal usoo doon saasina dhexdeed aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh